كنت وعنا ونكسن داود يال كسر دوادا برنامج كي حق يا حقيقة SSTV يا جيجا كيبل قيبتن وحن كو إيجي دونا حلبان كتسن برنامج كفدرال كصوماليا أو لغة صدور تهير شبيلة أي أنت بدن وحى أو كهلا ديجانا دا جبلان طبعا بلا صوماليا دو فربدن باودجا oo waxa weeye maamulkana qayb ka ah inkastoo tabashooyinka iyo maarta cabashooyinka ay iska yihiin wax maartay mar walba jira oo dadka markii xitaa la fiiriyo federaalka beeruhu aysan u wada sinayn oo mar walba ay jirto tabashooyin iyo beelaha qaar oo arka in maamulada kala duwan ee Soomaaliya ee ismaamulada ah ama maarta maamul goboleedyada iyo federaalkaba aysan u sinayn xilbanka hadda aan ka hadlayno waa Daahir Amin Jeesow oo dabcan isaga laga soo doorto Jawhar ظاهر أنت بدن لما أرك استجا أو كهذا يهلكي لقصة دورتي جوهر يهرشبيله مركل لإيجو حالة ده مارتي كدعاء سيدا لأن يردي سيد هيدا اللي يقول لي سيدا فتهذا وبيجا شبيله بلدوين ومالو يتأنوجين واجي هذا لو كنا سجاية توين كأنوجين وحي كدعاء أنت بدن ظروفها كلا دوان حالتها كلا دوان يمارتي دباتوين كدعاء هرشبيله كما هذا لكن أنت بدن ضدك وحي أركان أو أي كبر أروجان أو مقالدي سلا أركان سواء مقدشة فرما كصادرية أنت بدن جبلان حالة ده كهلا جرهان أنت بدن أحمد ومد حين جبلان هيستا هذا مركي قدام بيسنا وكل جناح حلبان حسن يرى أما حسن فريم سأو تقانام أو طبعا سوي تجناده جبلان فضل علىك كم مثلا وحمرك إيه جدو الناس صوبت مروا بكينتا إن حلبان Daahir Amin Jeesow maamulkii iyo dadkii soo doortay iyo halkii bulshadii uu matalayay waxa weeye uu ka hadlaa mar walba waxa uu uga hadla xagan Jubbaland uu dad gooniyaha u bartilmaameedsado u haysto heer xitaa hadda uu gaaray in uu beela Soomaaliyeed uu kala waxeeyo kala qoqoba oo xildhibaan xasayaro kala beelaha uu ka soo jeedo kala uu dhaho waxay ka soo gudbeen xuduudda deegaankan uma dhalanin waa inay dib ugu laabtaan wax xilliban Soomaaliyeed dadka dhan buu matalaa laakiin erayada qaar ba iyaguna waxay noqonayaan kuwa hadda ka hadlayno kala toon nacayb iyo dareen gooni ah dhalinaya soo dhawaad Shakuro bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay horta ma aanan rabin inaan ka hadlo xildhibaan Amin Jeesow inaan aan ka hadlo ma aanan rabin oo kulay ma jeclayn laakiin waaqaca keenaya nin waxaad moodaa waxay Soomaalida ku mahmaadaa nin gabadha nin naagtaada raba gabadha laguma karo aabiyad xildhibaan Amin Jeesow saynu ognahay wixii 2000 ka dambeeyay 13kii wuxuu ka hadli jiray media aad uga hadli jiray isagoo aad u dhaliilaya Axmedoobe Axmedoobe dhaliil kara waana la diidi karaa waa shakhsi siyaasi oo de shakhsiga siyaasiga ma la wada jeclaanayo qasamaan bulshadana wada jeclaato laakiin xildhibaanka Axmed ma aha nacaybkiisu nacayb waxa ku jira Axmed ka qota dheer ereyo uu qof xildhibaan ah ama mas'uul ah una ku hadli karin uu ku hadlay oo hadda waxa u dambeysay markaan tusaale soo qaadano xildhibaan Xasan Yare yaa khudbad jeediyay kowda luuliyo xildhibaan Xasan Yare wuxuu ka hadlay iyo Amin Jeesow wuxuu ka hadlay waxa aad u kala dheer baahay xildhibaan Xasan Yare waa xildhibaan Soomaaliyeed beel gooniyo oo taageerayana ma jirto waa madaxweynaha Firimbi lagu afuufo iyo in dhaliishiisa la sheego caalamkan ka dhacay waxaan ku raadayay qaladkiisa la sheego waxay ku dhisan tahay horta dawladnimada ku dhisan oo haddii mucaarad la yeelan waayo dawlad ma jiraysa wax la qabanayna ma jirto xildhibaanku marka wuxuu dhaliilayay dawladda iyo xukuumadda iyo waxqabadkooda iyo waxqabad la'aantooda iyo waxaas u dhaliilay beelna muuna taageeraynin beesha Amin Jeesow waxaan ka sheegin beel kala Soomaaliyeed wax ka sheegana ma jirto ma ogin intaan ognahay ma jirto social media waxaan ku aragnana ma jiraan laakiin xildhibaan Amin Jeesow wuxuu ku dhiiraday inuu intuu social media soo fadhiisto sidii maxaan ku raadayay qabqable inuu u aflagaadeeyo oo waxad gudbo oo cirdiga xildhibaanku waxad gudbo oo beesha xildhibaanku ka soo jeedo uu ka saaro Soomaalinimadii waxaad moodaa hadduu awood u lahaan lahaana inuu kaba saar lahaa ereyada adeegsada waxaa kamid ahaa Soomaaliya waxaad u kala qaybisay shantii saddex baan xoreynin baa tiri saddexdan xoreynin laba kamid aad ka timid Xasan Yare oo maadan xoreynin xuduudad ka soo gudubtay
marka wuxuu ka wada NFD iyo Somali State ها NFD Somali State buu ka wada oo midna kii ka tirsan yahay midna Ethiopia ka tirsan yahay waana labada state hadda oo Soomaalida markay qaxday ay ku badbaatay aad iyo aad oo Soomaaliya markay hadda Soomaaliya burburtay state-da ay ku meelaha goobaha nabad ku helaan wax barasho ku helaan ganacsi ku helaan waa siiba kan Kenya iyo Ethiopia labadaba haddaysan Soomaalidaas wax xasan yare ka soo jeedo ayna halka awood ku lahaan lahayna Soomaalidu meelay ku kala cararto oo ay ku qixlaan ma jirto Amin Jesu hadduu horta uu dareen leeyahay uu mahad celin lahaa labada dawladood aad iyo aad laakiin xasan yare beeshaada degta Ethiopia ama degta Kenya Soomaaliya loogama celin karo aad iyo aad حسن حلمان أمين جيسو مركو وصي صعد برلمانك وحسي هوس مراتالة ده سيد محمد عبد الله حسن وحلمان حسن يرى أديرك اللحمة ويان قلبك مركو سوه هنا أنا حاوتاك وسوه هوس مرا وحلمان كيدديس ويان هل تالا وهل كنك سوماليا كتالا أو محمد كرداي أمين جيسو مركو بيلهان لده ولا وين بكسو جدا بيلهان لده ولا وين كسو جدا أو سوماليا كتالا حسن يرى هوس مرا مجرت marka labadooda midkeen la dhihi karaa waa Soomaali midkeen la dhihi karaa wuu soo halgamay midkeen taariikh kula Soomaaliya midkeen Soomaalida inuu abaal guddo mudan aad marka la isbarbar dhigo xasan yar ayaa wuxuu mudan yahay qofka Soomaaliya ee arkaan inuu fadhiga uga kaco aad sababtoo ah isaga adeerkii ayaa maxaan ku raadayay halgankii Soomaaliyeed ee daraawisheed Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ba hogaaminay xasan yar ku beliye xasan yar adeerkii weeyaan أمين جيسو هذيركي ما أمين جيسو ما أرقم إياه مركو حسن يرلي هاي حدود الكسو قوت تعالى سيد محمد عبد الله حسن وهاس مريا تعالى نص مالي والبهاس مرو سلامه إني حسن يرلي هذيركي هاي ما أرقم إياه حاوتاك إني إدريته ما أرقم إياه هو أتاي marka aanu la kaftano xildhibaan Amin Jesu waxaan dheelahay lahayn dadkii ku xoreeyay xasan yar waa dadkii ku xoreeyay ilaahay ka sugo oo xornimadaada aad ku faaloonay sideed maanta xildhibaan ku tahay xasan yar iska leh marka waa inaad xasiyay marka aad fadhiga ugu istaagtay waa tahay ma santahay xornimadii waa dad badan Soomaaliyeed baa u soo dagaalamay iyo halgankii iyo sidii Soomaali gumeystihii iyo heeriyadii iyo culayskii looga dulqaadi lahaa aad ma santahay Cabdishakuurow waxaan filayaa fariintan inay gaari doonto dad kale tan oo Soomaaliyeed inay gaari doonto ujeedadu waa in xaqiiqooyinka jira iyo maartay wixii markaas jira iyo wixii dadku ay tabayaan in aan soo gudbino fikir ah ee maaha nacayb iyo in maartay dad gaar ah la bartaameysanayo xilban Daahir Amin Jesu waa xildhibaan Soomaaliyeed waa xildhibaan qaran jawhar badban si gooni ah xildhibaanada laga doortay 2016 laga soo doortay uu kamid yahay dhowr jeer oo kale tan xildhibaan boorsan noqday dawladii Xasan Sheekh Maxamuud dadka hadda ugu afka dheer dawladda hadda waxa weeye oo hadla maartay inta badan waxa uu markaad fiiriso uu dul saaran yahay oo inta badan wax uu ka sheegaa oo dhaliilaa Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland lama arka Daahir oo xaaladaha Hirshabeelle meelaha laga soo doortay ka hadla ama dhaliilaya ama ka hadlaya inuu wax qabtay inuu waxba qabanin madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare dad badan baa marka waxay u arkaan inay tahay sheekadu aabay niyar iga celiyo ni weyn igu siidaa marka waxaan leenahay xildhibaanada waa xildhibaano qaran waxa weeye waa inay u hadlaan shacabkooda dhibaatadiisa waa inay ka danqadaan waa in waxa weeye ay gacan ka geystaan marka loo gurmanayo shacabka dhibaatooyinka soo gaaraan laakiin qofka hadduu noqdo in maaragtay dad gooni ah u bartilmaameedsado oo qof gooni ah oo maalinkaas iska dul saaraado wixii sunnac ma yeelanayo wax micnaha laga soo qaaday hadalkiisana ma jiro ugu dambeyntii marka Cabdishakuurow maxay tahay fariinta aad u jeedinayso xildhibaan Daahir Amin Jesu intaan horta fariinta aan u jeedinay aan gaarin waa saad sheegtay horta xildhibaan Amin Jesu meelaha qalalaasaha ugu fara badan Soomaaliya ka jiro ama tacdiyada ama fatahaada aan dhahno masiibooyinka dabiiciga ah ahaado ayuu horta ka soo jeedaa degmada Walaweyn waan ognahay hadda maxaan ku raadayay dagaalo qabiil oo isaga lagu tuhmayo inuu isagu abaabulay dadkii lagu eedeeyo kamid aha ayaa horta ka jira aad iyo aad welina ka sii socda markaad maxaan ku raadayay mas'uuliyadda adigu aad lahayd kafteewna waxyaabahaas oo kale ayaa iska dhacay Hirshabeelle waa kuwii 8 dhalinyarada isku goobta lagu dilay oo ilaa hadda wax lagu dilay iyo sabab loo dilayna isagoo ka hadlaya ama maxaan ku raadayay uusan jirin waxaan dhilaa horta ilaahay mas'uuliyadiisa ha tuso
midda kale maxaan ku raadayay xildhibaanka waxaad moodaa shaqadiisa keliya uu gudanaya inay tahay inuu maxaan ku raadayay uu cadiifad dhaliyo uu qabiilo Soomaaliyeed oo walaalo ah oo waxba ka dhaxaynin uu isku diro waxaan hadda ognahay shir bardhaweyto oo soo abaabulay oo odayaal ay ka hadlayeen odayaashaasi waxay qaar kamid ah dhaheen beel kamid ah beelaha maxaan ku raadayay degta Jubbooyinka oo beesha Axmed ka soo jeeda ama haddaan carabaabo ogaadeena Soomaali ma wasiqooyinka isticmaalaan oo Australian buu yiri waxaan jeclaa odagaas inuu Amin Joseph Kubelia عديفة النوع عاسح اللي ما نقرن إنه أبوره بيش سوي دكتاه شبوين كوي دكتاه ولو أنا كوبنين لكن وي دكتاه سوى اللي ما نقرنه إنه مالول بكل هذا الله بيلاض الصومالية أو ولا لا إنه سكور كانوا هرت وحنا أركا إن البرلمان كلفت جوده إنه يكجابين يعني أو الحساب تنلان أي جرتو صوبته قفك اللي ما نكا وقحوا سمين أيوه وين لو قول حسابتهم قفوا بالمسؤولة قحوا سمين ولا قول حسابتهم لا حساب تنلان بجرته وقفك هدي قحوا سمين ولا قول حسابتهم أيوه يا بدن وينو كل هردين هدوسن أغلب يسوق قفك ما عمله إنه نحددين وإنه شرعي وحددين marka xilibaan Amin Joseph xad gudubyo fara badan ayaa maxaan ku raadayay iyo social media ka wada iyo isku dir fara badan oo beelo walaalaha oo isku dirayo waxaan dhihi lahaa maxaan ku raadayay hawlaha ka waantow lagagama baahna inaad cadiifad iyo qabiil isku diro iyo wiil Soomaaliyeed dila aad ka shaqaysid waxa lagaga baahan yahay inaad ka shaqaysid dalkeenna soo kaban lahaa 30 sano burbursan ee islaynaya dadkeeni ee iscunaya wala weyn saad nabad uga dhigi lahayd ee dadka walaalahay wala weyn deganad colaad aad dhaxdigta Aminow aad maxaan ku raadayay nabad u dhaxdhigi lahayd ayaa lagaga baahan yahay ee lagama baahno Jubbaland oo nabad ah iyo Kismaayo oo nabad ah inaad colaad u soo rarto marna waxaanu ka qaadanaynaa ma waana iyo wacyaanu ka qaadanaynaa Kismaayo ama maxaan ku raadayay gada dagaal ka dhacana wax aan qaadan karna ma waan waxaan ka soo daalno ka soo dharagnay adiga kula midkaana waa kuwii dalka Soomaaliya burburiyay maanta halku taagan yahay istaajiye weeyaan marka ka waanto waan dhihi lahaa واتاي طبعا وحويه عبد الشكور ومحسن يحيى وقتي ونسي يوريسيgiisa adduunka markii la fiiriyo waxyaabaha kicinta bulshada ah ee dareenka dadka kicin kara ama isku dirkaha ama dil inaad ku hanjabto waa dambi maxkamad baa lagu soo istaajin kara waxaadna ku mutaysan kartaa ciqaabta dastuurada caalamka dalalka u yaala kolba waxa ay ka dhigayaan arintaasi Kenya oo joogno dadka qofku ama mas'uul ahaado ama shacab ahaade haddii uu banaan soo istaago oo uu erayo maartay kicin bulshada uu ku hadlo oo beela maartay ama qoomiyadaha erayo isku diraya uu ku kaco ama hadalla maartay dil ah uu ku hanjabo waa dambi qofka waa la xiraa kadibna baaritaanka lagu sameeyo hadii dambiga ku cadaado maxkamadda la soo istaajiya dambiga uu mutoostay ciqaabtiisa ayaa la mariyaa Soomaaliya dabcan waxaan filayaa maadaama burbur muddo ay ku soo jirtay wali inaysan jirin shuruuc xadida qofku inuu dil ku hanjabo in qof uu beela isku diro erayo nacayb ah inuu abuuro ama kicin bulsho taasoo dareenka dadka waxa weeye bedelaysa keenaysana xumaan iyo in maartay iyadoo booga ay jiraan oo sidii Soomaali qaxa uu dhacay ee sulaayeen wali aysan jirin dib u heshiisiin rasmi ah oo beelihii Soomaaliyeed dhammaan dhaxmartay in boogahaasi la taabto la soo faqfaqo la dadanqo waxay keenaysaa in dhibaatooyin ay dib u bilowdaan waxaan filayaa ama aan rajaynayna qof kasta oo mas'uul ha noqdo oday dhaqameed oo mas'uul dawladeed ha noqdo xildhibaan ama wasiir ama maartay hogaamiye kale ha noqday in erayada bulshada maartay nacayb ka dhaxabuuri kara ee kicinta bulshada abuuri kara ee waxa weeye dambiga ah ee dhibaatada abuuri kara in la iska ilaaliyo oo dadka Soomaaliyeed ee beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee wadaagta ah ee wada degay wada dhashay ee xididka maartay isu wada dhaxay ee wada dhashay aan la isku dirin qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qaybtii ugu dambeysay ay ahayd in uga hadlaynay erayada nacaybka dhalin kara iyo waliba hadallada dadka qaar ka soo baxayay waxa igu martay Cabdi Shakuur Faaso oo hadalla maartay iyo jawaabo kala duwan halkan ka bixiyay intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmi doona haduu eebba awood loo ogolaado waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo